nabi maxamed wuxuu inoo sheegay run cadaabka lagu galo iyo been khayr laga helo weligaa ma maqashay run cadaabka lagu galaa jirta runta cadaabka lagu gala waxa weeyaan qof baa war cid kale ka sheegay oluu wax ka sheegay anna waan maqla warkii baan qaado ninkii laga sheegayaanu sheegay waa hebel ninkaasi reer hebel buu xamanayo caynkaa iyo caynkaas buu lahaa ama hebel waanuu ku xamanayo maalin dhaweydun baan la soo fadhiisto waxaasuu sheegay run baan sheegayaa ninkani waxan wuu sheegay laakiin anigu nammaan baan ahay qataat dad isku diraan ahay nabi maxamedna wuxuu leeyahay laa yadkhulu ljannata nammaamun riwaayadda kalena laa yadkhulu ljannata qataatun jannada ma gala buu nebigu yidhi diradiraaluhu diradiraalaha saadiqa ahi janno ma galo warka aad ogtay inuu laba qabiil isku jebinayo ama laba nin isku jebinayo ama laba urur isku jebinayo lama sheego lama faafiyo xumaha hebel intaad war ka soo dhegaysatay oo run ah oo uu lahaa oo uu caytamayey oo waxaan sheegayey satri baa lagaaga baahaya inaad qariso si aan muslimiintu isu dilin laakiin intaad la cararta inaad tidhaahdo labadayda dhagood baan ku maqlayay isagoo waxaa ku hadlayay labadaba naxaas baa kaaga shumaysa khayrka heli maysid labadaa dhagood aad ku maqashay khayr kuma helaysid been baa jirta nebi maxamed uu yidhi waa khayr oo waa maxay laysa alkadaabu aladii yuslixu bayna annaas buu nebigu yidhi beenaale ma aha ka dadka dhexdooda islaaxinaya fayunmi khayran aw yaquulu khayra imaamu nawowi wuxuu leeyahy raxmat ullaahi calayh waaldaahiru xaqiiqati alkadib buu leeyahy culammada badh baa idhaha waa tawriya iyo tacriid iyo kan imaamu nawowi wuxuu leeyahy waaldaahiru xadiidkan muuqaalkiisa waxaa daahira xaqiiqatu alkadib in loo jeeday laba reer baad heshiisiinaysay laba qof baad heshiisiinaysay kani war aanu kuu sheegin ama in yar uu kaaga sheego aad yaro balballaadhisay oo aad rabtidka kale inuu qaato oo uu soo daadego ayaad sheegtay dhibi kuma jirto sida xadiidkaasi nebigu calayh